سورة مقعدة همز بالله ويل لكل همزة همزة كما قعبانتها سورة وسورة مكية وانت رسولك مكة المكرمة وكل ولا سورة دي سورة دقيوي آياته هدون السقالوي سيدايو هذا شيء سورة مكية وحيكشها كيسي وردتك عيدين جيرتي وشرفت إيو النصب كمال ردعي جيرتي ذاتك النسخامين جيرتو حقيري جيرتو اللي جيرتي وانا وحا اللقوية قالنا وحا قيني قالهاي إنا عيبها هذا المامان وهي كل شغلومان عيبها ذاتك إنا كل شغلومان وقف دليل يمدان لهاي أي لماذا بصيدي أبوركي قيلها وحقا جيري أي حاجتان وحا النوعاسة ولا سيما قردة أي سورة عنانتا وينو شاكتي آخنا سيبن الشيخ من الأورنجري أيها سبب نزول المفسرين تأني وهابوا قضا منك أصحابك رسولك وحمان جري أنا وحاجة قرأت قفك اللحمان أيوه هدوه يقف أهل دينك وعلماء توصن هدوه هاي يدنا واتوقو درن وصورة من أولها إلى آخرها الرحمة برتد الأوغي ويل بيكب الله بطا إنها عليهم مؤسدة في عمد ممدد كتكتا محارس برتد ملك وحي مركا أوضا ليدهي دادك حقرة نصرك أمده وحكا أما عيبية قلت أفكاهلن أما عندها كوثيق الفلوحية ودادك إيشي يوحا كعقرة كوضا حد لقونك يدامنك يعربك واسنيسا دبيعتها سيهاي ولذا وحي مضيهين بشيكتي وحا حولها أرورية أسانا كبحين حقوق دا كواجبي والنفط ودا مرينايا إنا يوارا أيانا كوا ويتابطيو تقوى النمضو دي الجهل قودا أيها كوا كعابيسي وحي وركا كو قبيسي dadka noocaasa meesha loogu talagalay xumaanteeda ayay tilmaantay iyadoo oo bilaabatay waatana abdaw hadihi suura waxaan suuradan ku bilaabayaa bismillah alla magicii uskashadi allihii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista wey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi weylun waatayn yidhi weyl labaa lagu fasira erayo foolfool xun oo lagu dhadhajiyo qofka wadnaha majuujiyo weyl waa la yidhaah cadaab gaar ahaaneed oo jahannamo ku yaal oo xalaq gaara ku dhex nool oo loogu talagalay oo qofka loo geeya si gaar ahaan u xunana waa la yidhaah kolka cadaab daran wey oo ama hadal leh ama xalaq leh ama waadi gaar ahaaneed leh cadaabkaa daran nakiradaa la nakireeye weylun la yidhi ayaa weynigiisa iyo culayskiisa lagugu tusiyey waa cadaab daran oon la xamili karin cadaabkaas yuu u sugnaaday likulli humazatin mid xam badan kulligii wasankan fucalatin la yidhaah qofka markuu waxaan ka caada yeesho ayaa wasankaa loo isticmaalaa kolkaa waa min amhilati lmubaalaga kolkaa way badin jireen xantaasi madab ka dhigteen oo markay kulmaanba dadka unbay kala qali jireen weynun cadaab daran waxaa le likulli humazatin kuwa xanta badan kulligood lumazatin ceebaynta badane dadka ceebaynaya nasabkiisa iyo abuuridiisa wax ka sheegaayo dhaliilay kuwaasaa cadaab daran leh wey humazatin xanta badane lumazatin ceebaynta badan kolka xan iyo ceebayn ay labadaa isku darsadeen baa tilmaan kale loogu daray alladii midka jamaca ururiyey maalan xoolu ururiyey wacadadahu xoolihiibuu tirtiriyey tiradan xoolaha la kowlabaynayo oo waagii baryaba lagu celinayo labay ku tusinaysaa midii waxa weeye qofka jashacnimadiisa iyo dadaalkiisa yay ku tusinaysaa ta labaadna waxa weeye wuxuu tirtirinaya inuu wax ku daro maahaane waa ka dhimanayaa ma ogola oo haddii 10 riyaal la hayay oo mid laga qaado 9 bay noqotay tiradii isdhinta kolkaasuu xoolo tirtirinayo ama wuxuu u tirtiriyey sidii isagoo waaraayoo kale ayuu wixii intuu qaybiyey intaan sanadan ku hagaaji sanada dambana inta sanada kaana inta kolkaa burasheed wuxuu dhisay 20 sano soconayo xaggee 20 sano ka gaarayaa isaga inuu berri gaarayo yaa u sheegay kolkaa waxa weeye ticdaadkaas wax lasii darbaayo tuulul amal iyo moodis laysmoodaayo in la waaraayo ku tusinay alladii midka jamaca maalan xoolo ururiyey wacadadahu oo aan la shidin naqilowey xoolihii buu darbayo sanad baqaar ku hagaajiyey sidii wax waarayoon dhimanaynin oo kale wacadadahu waa uu tirtiriyey si xisaabta uu ku ogaado xoolaha hoos ugu dhicino wuxuu loo sii beerbeeriyo yaxsabu wuxuu malaynayaa yaxsibu qiro kala wey anna maalahu xoolihiisaasi akhladahu inay waarinayaan xoolahan uu meesha dhigay inay waarinayaan buu moodayaa markaasaa rabbi canaan jeediyoo yidhi kalla arrintaas ma oo xantaa wax la xamanayo ceebayntaa la ceebaynayo wax xoolahan la ururinayo sidii waxaan dhimanayn taasi ha laga daayo arrintu samaa kolkaasaa rabbi u sheegay dadka tilmaanta aynu soo marnay waxa loogu talagalo ilaa wuxuu yidhi subxaana layunbadanna waxaa la ridayaa fi lxutama
نار مقعد حطما ليرا أو وحشيدة لف يلدوحي الأركبة وانت جيرك لما يسودناها أبد بيسة لا ينبدن لو على ردايا قال صوت المامي في الحطمة نار حطما ليرا قده كل كاس ربي بونبونيو يري وما أدراك محاكو وبيسينا هي ما الحطمة حطمة وحيتاي ما كاس ربي إنه شيء ويري ونار الله إله النار أوليها المغدة مثل هوريون قبوبين وانها كنوي الله سي النار توي تطلع ورارته انت يجيكي كرو لنبا ميسي يوضنه عراشة كجري عالة فيدا لابيالك اي كدو البحداوي ووحي صودا ميسي لفي اللدبة قفر انتو كاكومي جيركي يبادن في اللطيبة يسوحنتي فالكاسا وضنه يرى ايوركو جيرتاها اي يودستي التي النارته تطلع ككر دالته عالة فيدا لابيال كركود وماشي اقول جلع سنة قدها كجيرتي انتي كالي صودا ميسي بالله وضا مركاسا ربي سبحانه إنها النارته عليهم كوا أي نصوت المعنى دو صوتبا مؤسدة لقود بولايا وإن يكرون نفسة لما وقال إياك يكسر نفسنا إيسا نخص يؤومي لقو علينا إنها النارته عليهم دو صوتا مؤسدة لقود بولايا كل كاسا ربي في عمد سير ريال قدهد بيكسر انتهي وطيرسا إياك يكون لحجرة إياك نواكسر لحجران ويكون قرب الدوريه وإياك عذابا بيسيحريه في عمد سير ريال قدهد ممددة فتيرتيريوي والله سبحانه وتعالى أعلم.